ciidamada laga keenay magaalada Muqdisho mudana ra'iisul wasaare iyo mudana madaxweyne ciidamadaas waxaa looga baahan yahay Afgooye iyo Shabeellada Hoose Hiiraan Mudug waxaan rabnaa halkan inaan ka cambaareeyo ciidanka Raas Gambooni lagu soo daldalay ciidan wanaagsan ma ahan ciidan laba siyaasadeed u socdo waaye halkani waa taliskii ugu weynaa ciidanka ATMIS ay kaga sugnaayeen deegaanada xeebaha waxaana uu ku yaalaa deegaanka Buurgaabo ee gobolka Jubbada Hoose dhowr bil ka hor ayay ka baxeen ciidanka ATMIS waxaana hadda ku sugan xeradan ciidanka dawladda Jubbaland oo la wareegay markii ATMIS ay ka baxday waa taliskii ugu muhiimsanaa ciidanka ATMIS saliyada ay ku leeyihiin guud ahaan deegaanada Jubbaland mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Jubbaland oo ku sugan deegaanada xeebaha oo ay ka socdaan howlgallo amniga lagu xaqiijinayo ayaa xeradan booqday Mooge Xuseen Guhaad oo kamid ah saraakiisha ciidanka dawladda Jubbaland ee xerada kala wareegay ciidankii ATMIS ayaa sheegay in xeradan ay ku sugan yihiin ciidanka dawladda Jubbaland isla markaasna ay ku filan yihiin guud ahaan amniga dawladda Jubbaland waxaan joogaa Buurgaabo xeradan waxa aan kala wareegnay naga Jubbaland xaran ma joogto federal ma joogo ciidanka Jubbaland daraawiishta joogta waxa uu cadeynayaa beesha caalamka iyo dadka shacabka propagandada dadka lagu wada halagada hadii loo baahan yahay in wax la qabto bu'aal iyo jilba u baahan in la xoreeyo intii diyaarad ciidan lagu soo goro in meel nabad oo ciidamada Jubbaland ay joogaan in la keeno dadka shacabka lagu qalqalgaliyo taas waxaan yeelayna maaha aniga saraakiishii aniga u taagan marka waxaan u sheegayaa madaxweynaha Soomaaliya hadduu rabo inuu wadan qabto al-shabaab wadanka dadka shacabka guumeysanaysa lacagta dadka propagandada lagu wado oo ciidamada Jubbaland intii la soo boqol loo soo tuurayo shacab masaakiina meel arka tuurin ilaa bu'aal ilaa jamaame loo geeyo dadkaas u baahan gudoomiyaha degmada Badhaadhe Xasan Nuur Cabdi ayaa xusay in marnaba aan la aqbali doonin xasilooni darro laga abuuro deegaanada Jubbaland ee hadda nabadda ah ciidankuna ay ku sugan yihiin amniga guud ee guud ahaan deegaanadaasi maanta waxaan ku suganahay meeshii loo yaqaan Buurgaabo oo ay joogaan ciidamada maamul goboleedka Jubbaland oo madaxweynuhu Axmed Maxamed Islaam ciidamadaas ku sugan meelihii ay ka baxeen ATMIS oo gacanta hadda ay ku hayaan ciidamada Jubbaland waxaan u sheegaynaa dadka been abuurka meelaha ka wado oo dhahaya waxaan la wareegaynaa meelaha ay ka baxeen ATMIS inaysan waxba ka jirin ay been abuur tahay mana ka yeelino in mataqaanaa waxaas barbagantaha meelaha ay ku wadaan mana shaqeyn doonto taasna waxaan sameeynaa waxaan u taagana dalkeena iyo dadkeena ciidamada qadabka Jubbaland waxay u taagan yihiin in dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda inay difaacaan diyaar uma nihin cid alaal cid ku soo duusho Jubbaland waxaan diyaar u nahay inaan gacan biro ku qabano cid aan ka yeelin ma jirto wadankana waa amni annaga joogno wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska dawladda Jubbaland mudane Cabdifataax Maxamed Muqtaar ayaa tilmaamay in Jubbaland ay ku filan tahay amnigeeda isla markaasna ay nasiib darro tahay xasilooni darrada dawladda federaalka Soomaaliya ay ka abuureyso deegaanadan oo muddo dheer nabad ahaa waxaan halkan ugu suganahay anigoo ku hadlaya afka magaca dawladda Jubbaland waxaan rabaa in halkan ka cadeeyo in halkani ay ahayd xeradii ugu weyneed ee ciidamada ATMIS ay joogi jireen halkaanina ay ku wareejiyeen ciidamada daraawiishta Jubbaland si nabadana ay ugu wareejiyeen waxaan soo marnay Kudaa oo ay halkaas sidoo kale hadda ay ku sugan yihiin ciidamada daraawiishta dawladda Jubbaland horeyna ay u deganaayeen ATMIS oo ay ugu wareejiyeen mataqaanaa ciidamada daraawiishta Jubbaland ATMIS sideedaba 7 qaybood bay ka degneed Jubbaland 2 qayb oo Kismaayo ah Cabdalla Biroole Kudaa Buurgaabo Ceelwaaq taas dhammaan waxaa la wareegay ciidamada daraawiishta Jubbaland si nabada bay ugu wareegeen waxaan arkay ra'iisul wasaarihii ugu sareeyay dalka oo ku andacoonay in ciidamada meesha la geeyay loo geeyay inay ATMIS kala wareegaan ay dadka deegaankana soo codsadeen dadka deegaanka waxaa horey ula joogay haddana la jooga mudane ra'iisul wasaare ciidamada daraawiishta Jubbaland iyo ciidamada nabad sugida iyo guud ahaan ciidamada Jubbaland ciidamada laga keenay magaalada Muqdisho mudane ra'iisul wasaare iyo mudane madaxweyne ciidamadaas waxaa looga baahan yahay Afgooye iyo Shabeellada Hoose Hiiraan Mudug waxaan rabnaa halkan inaan ka cambaareeyo ciidanka Raas Gambooni lagu soo daldalay ciidan wanaagsan ma ahan
ciidamo siyaasadeed u socda waaye waxa laga soo sheegayana wax wanaagsan maaha ani ma rabo inaan hadda sii tafaasiilay laakiin waxa laga soo sheegayo wax wanaagsan ma ah ciidamadaasi waxaan rajeynayaa in dowladda federaalka Soomaaliya intuu miyirka u soo laabto in ciidamadaas dib u